munaasabad hanaankeeda dhicitaan si heer sare ah loo soo abaabulay ayaa maanta ka dhacday macadka Sosta oo ku yaala gudaha magaalada Boorama. Munaasabadaasi oo ujeedadeedu ahayd xidhitaanka sanad dugsiyeedka 2016 iyo sidoo kale 2017 ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ay kamid yihiin maamulka macadka, waalidiin iyo sidoo kale ardaydii wax ka baranaysay macadkaasi. Ayaa waxaa ugu horeyn halkaasi ka hadlay isla markaana ka sheekeeyay taariikhda macadka iyo sidoo kale marxaladihii uu soo maray maamulka ku-xigeenka macadka Sosta Mukhtaar Cali Cabdillaahi. bilowgii aasaaska Sosta International College iyo siyaabihii loo aasaasay dugsigan hadda heerka caalami ah dhalinyarada ku bahowday ururka horumarinta bulshada Soomaaliland ee Sosta kadib markii arkeen baahida loo qabo dugsi noociisa iyo waxbarashada non-formal education-ka kadib markii eegeen dugsiyada ku yaala Boorama oo waxbarashadoodu gaarsiisan tahay ay gaarsiiseen heer caalami ama heer sare kadib markay sameeyeen baaritaan aad u ballaaran ay ku eegayaan waxyaabaha ka dhiman waxbarashada gobolka gaar ahaan waxbarashada dalban 2017-2018 dugsiga heerka caalamiga waxa uu bilaabayaa muddo hal bil ah in lagu akhriyo luqadaha Ingiriiska iyo Carabiga. intaasi kadib ayaa waxa iyaguna goobtaasi ka hadlay maamulka dugsiga Cabdixakiin Maxamed Barkhad iyo sidoo kale mas'uuliyiintii ka soo qayb gashay xafladda. Hadaladoodiina waxa kamid ahaa ardaydu marka waxay yihiin dadka mustaqbalka wax qabsanaya dalkan wax ka maamulay marka lagu leeyahay waxa tahay rajadii mustaqbalka adigoo arday marka lagu leeyahay micnaheedu ma aha kaliya in niyada lagu dhisay ama tusaale lagu soo qaadanayo wadadan ardayda ku jirto waxa soo maray dad taariikhda galay baa wadadan ardaynimada soo maray dad maanta dunida wax ka bedelay hadalkooda wax ka bedelay aragtidoodu ayaa dunida soo maray ardaynimada marxaladan aad ku jirto soo maray dad badan oo isbedelada dunida ka dhacay taariikhiga ah waxa u sababa in aqoonta la kobciyo khaasatan dumarka oo aqoon wax la baro gabdhaha wax la baray waxay u tahay اعتراف وين وعالمي ودنيده ku talaabsato ama horumar ku talaabsato ardayda sanadkan oo fadhiistay sanad dugsiyeedku waxay ahayd 200 oo arday oo ma sha Allah wax loo farxo mar walba wax rajeynaya tiradaas way ka sii korodhaa maanta 200 oo arday ayaa noo fadhiistay dhamaantoodna halkan waxa lagu abaalmarin doonaa insha Allah kaalmaha u horeeya fasalada cid gashay waxaan kaloo halkan u suurto gelinay ardayga dugsiga ugu sareeya inuu sanadka uu bilaash ku dhigto dhammaan waxaan leeyahay hambaliyo waxaan leeyahay halka ka sii haya waxbarashadiina mar kastaba saad u sii ballaarin lahaydeen ee ugu dadaal lahaydeen maadaama mar kastaba aad u taagantiin waqti kastaba aad u horeysaan taylkiina ma sha Allah salaamaya macallimiinteeda qaaliga ah ee jahliga iga saartay anigoo shalay ba garanayay say ugu egtahay ana kala saarin u waxtiyeelay ba tahay aan kala saarin horta waxaan ugu mahadcelinayaa ilaahay kaalin igu siiyay taas iyo macallimiinteedu ay ka baxsan oo anigoo ku hadlaya afka xubinteeda gudoomiyaasha dugsiga horta aad iyo aad u maasiin macallimiinteedu dhamaantood waan u mahadcelinayaa وينجيهن قون سدا بوح لوغ قرا وينجيهن قون سدا قليك لو قبصدا وينجيهن قون سدا قليك لو قبصدا سوستو على دوريبا إن فرتي سكول سوستو على دوريبا إن فرتي سكول ugu dambeyn ayaa waxaa munaasabadaasi shahaadooyin lagu gudoonsiiyay ardaydii wax ka baranaysay macadka Sosta oo kamid ah macadada ugu magaca weyn magaaladani Boorama. waa Cabsalaan Bashiir Faarax Cabsalaan Saha telefishinka caalamiga ee bulsho magaalada Boorama.